السلام عليكم أصحاب قالي السلام مالك صدقنك كجوجتين كسو دواي channel كيغا hadii aad ku cusub tahay subscribe ka taawo hadaa horna la joogtay waa ku mahadsan tahay maanta maxayna wadaa ceesh oo fudud oo jilacsan sida sameeye idin tusi doona marka ugu horeyso si aad u soo sameeysaa u soo qasayso ceeshka waxa u baahan tahay bur kugu filan familkaaga ku filan ani waxaan isticmaalaa koobkaas oo ujeedin oo saddexdiisa ah isticmaalaya adiga hadaa rabtid koobkan cabirkiisa oo halaan aan hada qasta daaratid koobka shaaha lagu cabo oo afartiisa ka soo dhigan kartaa kan maadaama kasto weyn yahay saddexdiisa ka soo dhigtay meesha kasto u baneena waxyaabaha oo ku darsan lahayn aan ku soo shubaa marka waxa soo qaadanaya marka ugu horeyso qaadada oo cuntada lagu cuno oo sokor ayaa soo qaadanaa laba qaado iyo bar marka badinaysid inuu waxyar ku guuto la rabo macaan zaid inuu noqdo marka waxyaabaha lagu cuno laba qaado iyo bar oo sokor marka ugu soo shubtay hadda waxa kale u baahanhay ukun inaa soo qaataa xab ukun u baahan tahay iyo waxyaabaha kale leewati iyo waxyaabaha saddex xab ukun oo soo darsaday ujeedin kadib waxa isticmaalaa hal baac oo leewati hadii laakiin leewatada cabirka sida Soomaaliya isticmaashid waxa isticmaal kartaa hal qaado ama hal qaado wax yariisko wax yar isticmaal kartaa caanaha waxa isticmaalayaa bakeeriga yariiska oo caano qasan waaye supermarket-yada laga helo maadaama caano boor haysanin caanaha la soo shubtay hadaa haystid caano boor ku shubinaysa biyo kuleel oo qasanaysa oo wax yar qandac markaan hadda caanaha la soo isticmaalay inta kale waxa rabaa in biyaha qandac ku dhameystirto intaana hadda isku qasqasa dhaxaysa ujeedin leewta si bulbul iyo naqanin ma laha burbur naqanin kadib hal mar isku qasaysa ujeedin waa soo dhaxgelina marka hadda markuu yahay wax yar biyo ku tarsanaa ilaa uu ka soo adkaado macnaa oo ka soo cajimo waa kaas oo noo soo cajimaysa ujeedin anigana maxal dhahaa kaamirada iga dintay gacanteedan inuu wax ila lahaa ma jecel maanta dhan waa iska dhaqaa waaba dhibsadaa cajiinka inuu gacantii dhigdhiga dhibsadaa maanta waa soo dhaqaale hadda waa soo dhaqay markaa soo cajimay oo asadhay soo dhaxgala idin tusaysa ujeedin kaamiradana inta hore oo si fiican isku dhaxgelinaa way iga dintay caadi waaye si fiican aan amal isku soo dhaxgelinaysa kadib diyaar oo ku yahayba waxay sugaysaa ilaa 30 daqiiqo oo ku soo khamiirayo markuu soo khamiiro waxyaabaha kala sameeyay waa fidinay waa biskuna waa ka soo hadda waa soo khamiiray markuu soo khamiir kadib burka waxa soo qaatay geedka wax lagu fidinayo waxa bur ku soo shubtay burkii rabaa inuu ku fidiyo saliid ma lagu fidinayo saliidna ma lagu dubay si sawaayad oo kale sawaayad bur lagu fidiyo saliid lagu dubay laakiin kan waxa sameynaysa bur ku dubay maya bur ku fidinay saliid dhan ku taabnaysid bo marka dubaysid caali oo sarsaaray waa dubeele asagoo dhan waxa la rabaa qaleel inuu wax yar burkana marka fidinaysid burka wax zaid yariisidna ma la rabo in zaid weynaysidna ma la rabo waxa kaliya qiyaas oo marka fidisidna asagoo dhan inuu wax naqdo ma la rabo qafiif zaid inuu naqdo ma la rabo inuu culays zaid naqdana ma la rabo waxa la rabaa qiyaas asagoo dhan kadib isbuunya soft iyo ku naqana asagoo dhan waa isla arkeenaa hasa markaa soo wada fiidiyo oo soo dhameeyo isla arkeena waxaa rajayna inaad ka wada faa'iidaan ceeshkan oo fudud mujadino intaas laga rabaa inuu naqdo markaas oo dubayna inuu furfuura la rabaa isla arkeena halkaas birta soo saartay hadda markaas soo qaaday wax yar inuu kala jijiid macaal dareemaya gacantaada soo sii toosinay markaa bir soo saartid maadaama burkeen noo jilacsanay oo markaa duweysna jilaac siguro ku naqmo iyo markaa cunaysid saas la rabaa inuu jilacanaado burka hadda ka adkaado markaa dib xataa adeegoo naqanaa si taas u dhicin burka inuu jilacsanaado waa hadda sidaas oo gidgidinaa markaa soo qalalo camal waa gidgidinaysa soo fuura kadib shuuqa asaga leeyahay saasoo naqanaysa ujeedin
hal ilaa laba camal aan idin tusayaa. Waa isku soo dhex qasqasin fahmino waxaa waaye waa kaas kan labaad camal waaye kan hadda soo ujeedin haddana saas usoo fuuray diyaaro buu yahayna waxaa rajeyna inaad ka wada faa'iideen. waa kaas mujeedino sidaas oo kusoo wada baxay jinjin oo qayaas ah oo soo wada baxay oo jiilacsan asagoo dhan lagama sheekey karo. waxyaabahin kale aan ku cun lahayn intu saa soo baxa meeshaan waxaa ku haystaa chicken adiga waa soo sameysan kartaa haddaa artid, laakiin ana hadda waxaa jeclaystay chickenka inaan sameeyo laano aabo ka helaa chickenkaanid waxaa lahaa dooner turkida isticmaalaa inta badan turkida ku arkay asagoo diyaarsan soo gatay woon karsan yahay, laakiin ani hadda dabka soo saaraa waxyar waa soo qajicnaa wuu guduudinaa waxyar iyo maxaa la waa soo kululaana waxyaabihiis oo kale dhan moo wataa. marka asagoo diyaarsan isku soo gata ani qofkii rawan caadi u sameysan karaa oo chicken caadi u sameysan karaa, qofkii rawan soo diyaarsan soo gadan karaa. marka maanta muhiimadu waxay ahayd in ceeshkaas sida u sameeyay idin tuso waxyaabahan oo kale korsaar waaye waxyaalahan oo kale korsaar waaye saa hore idinku sheegay. waxaan rajeyn doonaa inaad ka wada bogateen. waxaa idin leeyahay mar koowaad mar labaad mar saddexaad soo dhawaada channelka waa channelkiina. wixii aad jeceshahay inaad ogaatid ama aad rabtid ila wadaagtid commentiga waa igu soo sheegi kartaa. asxaabta la sii share garee. waxaan rajeynaa inaad ka wada faa'iideen. marka chickenka saas kasoo dhigay waraa idinku daayay marka chickenka saas kasoo dhigay ceeshka sidaas soo jarjartay kadib baradhada soo qaatay oo baradhada iyadan diyaar ahayd kadib waa soo qaaday foornada geliyay inaa soo dhigay umaleynaa TikTok ama YouTube meelaha soo dhigay ma xasuusta, laakiin sidaas soo sameeyay chicken baradhada iyadoo diyaarsan foornada soo geliyay sidaas soo dhaqatay way soo guduutay. chickenkiina waa kaas iyo dilaac bilaasha soo karsadaa waxyar kor uu soo shubnooya iyo waxyar basbaas kor ka soo saaro waa isku dhamaatay ku dhahay inaba caadi maahan lagama sheekey karo. waa kaas sidaas oo kusoo baxay soo ujeedin. waxaa idin leeyahay waa inuu videoga xiga insha Allah iyo waxyaabo kale cusub oo idin cajab geliyo. مع السلامة.